madaxweynihii hore ee dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa baajiyay socdaal uu ku tagi lahaa deegaanada SSC Qaatumo kadib markii ay la soo daristay sida la sheegay xaaladda cabsiya oo la xiriirta in Somaliland ay carqaladeyso socdaalkaasi. markii uu Farmaajo tagay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland ayaynu halkani ka baahinay xogta socdaalkaas uu qorsheynayay inuu ku tago magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool kadib dalab ay u soo jeediyeen mas'uuliyiinta iyo waxgaradka maamulka ku meel gaarka ah ee SSC Qaatumo. madaxweynihii hore ee dalka Farmaajo oo dib uga soo laabtay magaalada Garowe ayaa shaaca ka qaaday inuu baajiyay socdaalkaas u qorsheysnaa inuu ku tago SSC Qaatumo, balse waxa uu ku sheegay sababta baajisay safarkiisa magaalada Laascaanood in lagu guda jiro bisha barakaysan ee Ramadaanka iyo waqti kulayl ah oo aanay dadku isku soo bixi karin sida uu hadalka u dhigay. Farmaajo ayaa safarkiisa Laascaanood kala hadlay hogaamiyaha ku meel gaarka ah ee SSC Qaatumo Cabdulqaadir Firdhiye oo ay ku kulmeen magaalada Garowe. madaxweynihii hore oo ka hadlay booqashadiisa si muuqaal uu soo dhigay boggiisa Facebook waxa uu sheegay in marka hore uu ka soo laabanayo magaalada Muqdisho balse uu qorsheynayo in uu mar kale tago magaalada Garowe kadibna uu kaga sii gudbo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. waxa uu ku yiri hadalkiisa aniga iyo hogaamiye Cabdulqaadir Firdhiye waxaan ka wada hadalnay oo aan isku sheegnay inay qurxoon tahay in aan dib u soo noqdo marka kulanka uu halkani ka dhacayo aan waqti fiican ku imaado Qaatumo, ayuu yiri madaxweynihii hore ee dalka Farmaajo. sidoo kale waxa uu carabaabay magaalooyinka uu booqan doono haddii alla yiraahdo marka kale ee uu dib ugu laabto Garowe, isagoo ku sheegay in qorshihiisu uu yahay si uu la kulmo dadka deegaanka ee SSC Qaatumo. waxaan ka bilaabayaa magaalada Laascaanood, Buuhoodle, Guumeys iyo Carooley iyo wixii kale ee deegaana ah ee ay noo suura gasho inaynu tagno, ayuu yiri madaxweyne hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. sidoo kale waxa uu inta raaciyay waxaan rajaynayaa inaan sida ugu dhaqsiyaha badan ugu soo noqdo Puntland kadibna aan socdaalkayga ku bixiyo SSC Qaatumo. warar madax bannaan oo warbaahintu ay ka heshay magaalada Garowe ayaa xaqiijinaya in socdaalka madaxweyne hore Farmaajo uu ku tagi lahaa Qaatumo loo baajiyay cabsi la soo daristay kadib markii laga war helay in qaar ka mid ah deegaanada uu qorsheynayay inuu booqdo ay abaabul ciidan ka wado meelo u muuqda Somaliland, taasoo iyada qudheedu ka war heshay safarka uu ku tagayo Farmaajo deegaanada SSC Qaatumo. sidaa daraadeed madaxweyne Farmaajo ayaa xaaladaasi amni darteed waxa uu dib u dhigay socdaalkiisii uu ku tagi lahaa dhulka SSC Qaatumo kadib dalabkaasi kaga yimid qaar ka mid ah waxgaradka iyo hoggaanka sare ee maamulka ku meel gaarka ah ee SSC. maamulka ku meel gaarka ah ee SSC ayaa hadda gacanta ku haya magaalada Laascaanood iyo inta badanba gobolka Sool kadib markii ay ka soo raacdeeyeen magaalada Laascaanood ciidanka militariga Somaliland 25ka bishii Agoosto ee sanadii 2023 ka gadaal muddo 8 bilood ah oo ay halkaasi ku dagaalamayeen ciidamada deegaanka ee Qaatumo iyo kuwa militariga Somaliland.